daawo mucjisadan asagoo nool ayaa la duugay 5 habeen ayuuna gudaha qabriga ku jiray wuxuuna arkay oo maqlay codad cabsi ku abuuray subxaanallah si mucjiso ah ayuu uga soo baxay gudaha qabrigii lagu duugay markii uu jaranjarti gaaray oo isku dayay inuu koro wuxuu dareemay inuu qof lugta gadaale ku dhagan yahay oo uu jiidayo nin dhalinyaro oo 30 jira haddana isu bedelay oday shayb ah oo 90 jira waa uu qaawan yahay aad ayuu u daalan yahay laakiin ugu dambeyn wuxuu soo baxay asagoo kalar ahaan bedelmay tintiisuna ay cadaatay waxyaalihii uu la kulmay waxyaalihii uu arkay iyo waxyaalihii uu maqlay ayaan rabnaa inaan muuqaalkan ku faahfaahino waa qiso dhab ah oo ka dhacday gudaha dalka Masar ugu horeyn ha ilmaamin xuska Ilaahay iyo inaad afkaaga ku carfiso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam codkayguna waa muuqaalka like saar una sii share garee saaxiibada friendiska kula ah page-keena waayaha dunidana follow dheh qisadeena maanta waxay ka mid tahay qisooyinka mar walba aan baaritaanka ku sameeyo waana qisooyinka aan isleeyahay mucjiso ayaa la dhihi karaa waa qiso uusan caqligu rumaysan karin waxayna mashquulisay guud ahaan caalamka carabta waxay ku bilaabmaysaa wiil dhalinyaro ah dhalinyarada caadiga la mid ahaa wuxuu ka shaqaynayay maqaaxi gabar ayuu doontay waana uu guursaday rootiinkiisu wuxuu ahaa inuu guriga ka tago maqaaxida ka soo tago gurigiisa imaado ilaa uu gaaray maalinkan noloshiisii oo dhan bedelay xuseen wuxuu leeyahay maalinkaas aad ayaan u daalay markii aan shaqadeedii dhammaystay ee aan rabo inaan gurigaygii u hoyaado ayaa waxaa maqnaaday saaxiibkaygii aan rabay inuu shaqada iga bedelo oo shiftigiisii la gaaray shaqadii waa uu ka maqan yahay 2 shifti ayaan isku darsaday ilaa subaxii maalinkii kale la gaaray anigoo 2 shifti shaqeeyay kadibna gurigayga ayaan aaday si aan u nasto cunto yar ayaan cunay kadibna hurdo dheer ayaan galay waxaana daalanaa daal normal ah waxaan la mid ahaa qof 16 saacadood ka badan shaqeeyay subaxii ayuu seexday wuxuuna jiifay ilaa ay qoraxdu ka dhacday dadkii la joogay waxay isku dayeen inay kiciyaan laakiin waa uu kici waayay wado walba oo ay ku kici karaan ayay isku dayeen laakiin ma hadlayo ma nuuxnuuxsanayo ugu dambeyn dhakhtar ayay ugu waceen dhakhtarkii wuxuu amray in si degdeg ah isbitaalka loo geeyo sidoo kale wuxuu sheegay inuu ku sumoobay wixii ugu dambeeyay oo uu cunay intuusan seexan ka hor waxaa la geeyey isbitaalka qolka baxnaanada gaarka ah ee emergency-ga isla markaasna dhaqaatiirtu waxay sheegeen in ninkan xibnihiisa oo dhan ay istaageen jirkiisuna wax shaqo ah uusan hadda wadin taasoo ka dhigan inuu Xuseen geeriyooday oo naxariista Ilaahay u guuray dhaqaatiirtu waxay ka dalbadeen qoyska Xuseen inay sharaxaan sababta keentay geerida Xuseen qoyska Xuseen waa ay diideen waxayna dhaheen arrintaasi hadda muhiim ma ahan maxaa yeelay wiilkeena noo soo laabamaayo oo hadda waa uu geeriyooday markaas kadib waxaa bilaabatay Xuseen in duugidii loo diyaariyo isbitaalka gudihiisa ayaana lagu dhaqay markii la diyaariyay isbitaalka ayaa laga qaaday dhankaas iyo qabuuraha ayaana loo qaaday Xuseen intaani waa bilowga qisada oo kaliya wax yar suga waxyaabaha naxdinta leh ee noo soo socda daawada waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like saarto haddii aad hilmaantay sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-keena waayaha dunida channel aad hal subscribe noo saarto annaga wax weyn ayay noo tahay Xuseen wuxuu ka soo jeeday qoys masaari ah oo danyar ah oo aan awoodin inay boos ka iibsadaan qabuuraha qaaliga ah waxayna aadeen meel lagu magacaabo maqaabir sadaqa qabuuraha sadaqada ah waa meel aan wax lacag ah laga rabin qabuurahaasi ma ahan qabuuraha caadiga oo aan naqaano oo kale waa dhismo weyn oo guri camal ah oo dhulka hoostiisa ku yaala markii aad gudaha u gasho waxaa ku sii yaala qabuuro jamaaci ah oo sadaqa ah godad diyaarsan oo dabiici ah qofka waad dhex dhigaysaa waad ku daboolaysaa sidaas ayaadna ugu duugaysaa yacni jamaaci waa dad badan ayaa hal mar lagu duugayaa waa god gudihiisu uu aad u weyn yahay markii la duugay halkii ayaa looga soo tegay saacaddu waa ay socotay waa la ooyey waa loo tacsiyey dadkii ehelka ahaa mar laga joogo 3 maalin duugidii Xuseen waxaa dhacday arrin naxdin leh oo aan la filayn Xuseen waa uu soo kacay wuxuuna dareemay inuu mar labaad noloshii ku soo laabtay laakiin ma uu oga meesha uu joogo halka uu ka soo kacay iyo wax ku dhacay midna asagoo karfantii ku xirxiran tahay ayuu indhaha kala qaaday mugdi ayuu dareemay gacmihii ayuu dhaqdhaqaajiyey oo jirkiisa ayuu taataabtay wuxuu arkay sankii afkii iyo dhegihii oo suuf uga owdan yahay suufkii ayuu iska baxshay markuu iska baxshayna wuxuu dareemay ur iyo qurun aad u liita karfantii ayuu iska furfuray intii indhihiisa ku aadanayd kadibna geesaha ayuu fiirfiiriyey wuxuu arkay meydad dhinac walba ka xiga lafa bini'aadam iyo meydad cusub oo hadda sii baaba'aya waxyaabo uusan indhaha u dhammaystiri karin isla markaasna aad ayuu u qayliyey asagoo cabsanaya jirkiisa uu gilgilanayo kan asagoo ka sheekaynaya arrinta ku dhacday waa u qayliyey si wax badbaadiyo uu u helo xibnihiisi ma wada adeegsan karo oo waa uu xirxiran yahay sida ilmo yar ayuu u gadgadoomay ilaa uu gaaray jaranjartii albaabka ahayd Xuseen markii uu jaranjartii gaaray oo isku dayay inuu koro wuxuu dareemay inuu qof lugta gadaale ku dhagan yahay oo uu jiidayo lugta sidii loo jiidayay dareenka ayaaba ka tegay wuxuuna dareemayaa xanuun aad u badan wuxuu isku dayay cidda jiidaysa inuu ogaado laakiin waa mugdi qam ah waxna lama arki karo Xuseen markaan ma awoodo waxaan ahayn inuu qaylo un ku raadiyo wax badbaadiya 2 maalmood oo kale ayayna ku qaadatay inuu halkii ka qayliyo oo ku ooyo maalinkii dambe dadkii soo booqday qabuuraha oo meyd kala sida ayaa maqlay qaylada Xuseen laakiin yuu yahay qofka ku dhiiri kara inuu aado cod ka qaylinaya qabuuraha gudahooda dhammaantood waa ay maqlayeen waa ay aamusayeen qabuurahana waa ay ka tagayeen
qaylinayeen waxayna u maleeyeen waxaan qaylinaya inuu yahay jin qabuuraha ku dhex jira ama qof la cadaabayo. Xuseenna 2 maalin ayuu jaranjartan joogay asagoo ooman oo baahan hurdo la'aan, laakiin waxaasoo dhan waxa uga darnayd cabsida iyo cid badbaadisa oo aan u imaan. Xuseen 2 maalin waa uu maqlayaa dadka korkiisa maraya kabahooda iyo socodkooda. 2 maalmood Xuseen mar walba oo uu maqlo dadka korkiisa maraya shanqartooda waa uu qaylinayay, ayaguna waa ay ka cararayeen ilaa ay shanqartoodu ka qarsoonto. Ugu dambeyn maalin ayuu maqlay Xuseen shanqarta dad u soo dhawaaday albaabka qabriga. Dadka halkaas marayana waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah dadka qabuuraha qoda. Markuu shanqartiisa iyo qayladiisa maqlay ayuu albaabkii furay. Markuu sidaas u furay wuxuu arkay muuqaal iyo mandar aad u argagax leh. Wuxuu arkay xaaladda Xuseen oo ahaa markii hore nin dhalinyaro oo 30 jira haddana isu bedelay oday shayb ah oo 90 jira. Waa uu qaawan yahay, aad ayuu u daalan yahay, wuxuuna u ekaaday dadkan meydadka ah. Qabuuro qodihii waa uu adkaysan waayey, dhulka ayuuna ku dhacay, dadkiina meeshii waa ay ka kala carareen. Laakiin Xuseen hamigiisu waxaan ma ahayn ee wuxuu ahaa ujeedkiisu kaliya inuu halkan ka baxo. Intaas kadib maamo qabuuraha ag deganeed oo maqashay Xuseen waxa ku dhacay ayaa mara soo qaaday oo cawrada ugu asturtay. Kadibna Xuseen isbitaalka ayaa la geeyey. 5 habeen ayuu cunto la'aan iyo baahi ku ahaa qabuuraha gudahooda. 3 habeen waaba uu miyir daboolnaa oo dadkaas dhintay ayuu la mid ahaa. 2 habeenna qabuuraha gudahooda ayuu ku noolaa cabsi iyo argagax. Waxaa loo sameeyey daaweyn, baxnaanin, dhiigag in lagu shubay. Intii la daaweynayay argagaxi iyo wixii uu la kulmay ayaa ku soo kacay, wuxuuna galay miyir dabool 3 bilood ah. 3daas bilood faleemba ayaa lagu quudinayay, waana la soo booqan jiray oo kaliya. Mana jirin qof ku dhiira karay inuu soo dhawaado, gaar ahaan qoyskiisa. Kadib markay arkeen sida wejigiisu isu bedelay iyo tintiisa siday u cadaatay. 3 bilood kadib markuu soo naaxay oo soo kacay, wuxuu dalbaday inuu hooyadiis la kulmo. Hooyadiis dalabka wiilkeeda waa ay aqbashay. Markii uu soo dhawaatay inta aysan gacanteeda wejigiisa ku taaban, waa ay naxday, wadnihii ayaana istaagay oo sidaas ayay ku geeriyootay hooyadiis. Intaas kadib Xuseen 1 sano oo dhammaystiran ayuu isbitaalka ku jiray. Markuu soo kacay wuxuu ogaaday dhaqaatiirtii isbitaalkan joogtay oo awal sheegeen inuu ninkani geeriyooday inay isbitaalka ka carareen kadib markay ogaadeen in Xuseen uu mar labaad soo noolaaday oo isbitaalka loo soo wado. Maxaa yeelay jawaab degdeg ah oo qaldan oo xaaladda Xuseen laga bixiyay ayaa dhibaatadan oo dhan keentay. Xuseen waxa ku soo baxay markii uu fiicnaaday ee uu banaanka imaaday cudurka sonkorta ayaa laga helay. Sababtuna waa naxdintii iyo walwalkii geerida hooyadiis. 3 bilood ee uu miyir daboolnaana sonkortan ayaa ku kacday. Markii uu soo baxay dadka badankooda Xuseen waa ay ka kala carareen, waa ay ka fogaadeen. Xitaa xaaskiisii uu doontay oo uu qabay markii la duugayayba bilo yar waa ay ka tagtay, waana ay diiday inay qaabisho. Dadka badankooda sheekadan markay maqleen qaarna waa ay beeniyeen, qaarna shaki ayay ka keeneen, ayagoo taagan siduu qof 5 maalin oo isku xigta biyo la'aan iyo cunto la'aan u noolaa karaa. Taas waxaa looga jawaabay ninkan horta 3 maalin oo hore hawada ayuu ka maqnaa oo waa uu miyir daboolnaa. Waxa uu cunto la'aanta iyo biyo la'aanta ahaa waa 2 maalin oo uu noolaa oo kaliya. Sida caadiga ahna qofka bini'aadamka xitaa asbuuc waa uu gaari karaa cunno la'aan iyo biyo la'aan oo waa uu noolaa karaa. taas oo dhan waxa ka sii muhiimsan oo aad ku qanci kartaa anallaha calaa kulli shay'in qadiir, ilaahay wax walba inuu awoodo. ra'yigaaga iyo wixii aad aaminsan tahay qaybta commentiga ayaad noogu soo qori kartaa. macquul miyaa qisada mase adiga caqli galba kulama ahan oo been ayaad ka aaminsan tahay? muuqaalka like saar, channelkan subscribe dhe, aad ayaad u mahadsan tahay.